waxaa maanta magaalada Habalgubadle ee xarunta gobolka Hawd lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen maayirada degmooyinka gobolka Hawd waxaana shirkan ujeedadiisu daaranayd xoojinta guud ahaanba nabadgelyada gobolka Hawd iyo sidii go'aan looga qaadan lahaa baabiinta seerayaasha sharci darrada ah. shirkan ayaa waxaa shir gudoominayay barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Ali Xasan. kulankan ayaa waxaa laga soo saaray go'aamadii shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa halkaasi ka akhriyay Cabdikariin Xaaji Cali. dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa shirka ka soo baxay go'aamo in bil kasta khamiista u dambaysa loo mudeeyo inuu qabsoomo shirkii golaha gobolku maadaama uu gobolkani ku yaala inta badan xuduud. waxaa la isla gartay in kor loo qaado hagaajinta xiriirka gobolkani uu leeyahay gobolka Faafan. waxaa la isla qaatay in laga bilaabo 10ka bisha tobnaad ee soo socota laga bilaabi doono olole iyo campaign cagta lagu marin doono amba lagu tirtiri doono seerayaasha loo ogolaan doono 2 mitir oo qura. waxaa iyaguna kulankaasi ka hadlay maayirada degmooyinka Balligubadle, Ballacabane, Sayla iyo taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Hawd waxayna dhammaantood ballan qaadeen inay fulin doonaan go'aamadaasi ka soo baxay shirkaasi. go'aamada ka soo baxay shirka ayaan isla qaadanay ilaa heer gudoomiyaha gobolka ilaa heer gudoomiyaal aad iyo aad baan insha Allah u dhaqaajinayna. waxaanu taageerinaa in bisha 10keeda cidii aanu ku aragno beer oo dan oo aan beerta gubin sida Itoobiya u gubtay waxaanu ka qaadanaa talaabo sharci waafaqsan 25 cisho gudood bisha 10keeda yaan qofna loogu iman si Itoobiya uu qof walba gacantiisa ku gubay. waxaana ugu horeeya oonanu horta ku darsanaya nabadgelyo taasoo baa daran aniga marka hadal la soo gabagabadii shirkaasi waxaa soo gunaanaday barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Ali Xasan. waxaanu runtii raacaynaa digreetada madaxweynaha ayaanu haynaa ee uu soo saaray in seeraha la baabi'iyo tiibaanu raacaynaa fulin baanu anagu runtii nahay. hay'adaha dawladeed ee heer qaran ay khusayso wasaaradda arrimaha gudaha ee fulinta nalale, wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, wasaaradda xanaanada xoolaha. Maxamed Siciiro Axmed, TV qaranka Soomaaliland, magaalada Habalgubadle.